السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا شرفت له أدونك ميل كستا كجوجتين كسو دوادا cunta macaan channel fadlan maxaan kaa codsanayaa channelka daa soo booqatay inaa subscribe sartid muuqaalkan hadduu kusoo gaaray maxaan kaa codsanayaa inaa like sartid asxaabtaadii familigaada la sheegraysid aad iyo aad ayaa u mahadsantahay asxaabteyda qaaliga maanta waxaan sameynayaa qado bariis biryaan iyo hilib cabitaan iyo casriyo doorsho insha allah la socod wanaagsan soo dhawaada bismillaah marka hore 5 xabo basal ayaan jarjarayaa biryaanig markaa karinaysid basasha badan aad iyo aad ay muhiim u tahay markastana basasha maxay ku xiran tahay qiyaasta bariiska aad karinaysid basashan ayaa marka hore jarjarayaa markaan jarjaro kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha allah asxaabteyda qaaliga basasha dhammaantood sidan ayaan usoo jarjaray kadib markaan saliid ayaan dabka soo saartay saliidda markay soo kululaatay kadib basasha ayaan kusoo ridayaa kadib markaan maxaan sugayaa basasha ilaa ay brown ka soo noqoto asxaabteyda qaaliga basasha markana diyaar waaye saliid ayaan ka bixinayaa kadib maxaan saarayaa saxan aan tiishi sare markana stepka labaad insha allah la socod wanaagsan baaquligan maxaan ku haystaa 1 kiilo hilib ari ugu horeyn maxaan ku darayaa 1 qaado oo toon kadib maxaan ku darayaa 1 qaado sanjabiil kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar iyo nus oo cusbo kadib maxaan ku darayaa half liin dhanaan aan soo miira asxaabay markana maxaan kusoo darayaa 2 qaado yaanyo shiishiid kadib maxaan kusoo darayaa 1 qaado yar paprika kadib maxaan kusoo darayaa 1 qaado yar xawaaji dhudhuub kadib maxaan kusoo darayaa 1 qaado yar oo huruud kadib maxaan kusoo darayaa qaadada yar afkeeda hore oo hel kadib maxaan kusoo darayaa wax yar oo sacfaraan oo orange kadib maxaan ku darayaa nus bakeeri plain yogurt asxaabay markana maxaan kusoo darayaa basasha aan shiilaayay nus ayaan ka isticmaalayaa nuska kale gadaal ayaan ka isticmaali doonaa kadib markan maxaan kusoo darayaa 2 qaado oo saliid intan ayaa markana si fiican isku darayaa kadib hilibka waan daboolayaa firinjeerka ayaan gelinayaa firinjeerka maxaan rabaa inaan geliyo uu ku bariyo ilaa iyo habeenkii dhan asxaabteyda qaaliga markana hilibka fridge ayaan kasoo bixiyay maxaa la rabaa 1 saac ka hor inta karnin inaad fridge kasoo bixisid marka hore maxaan rabaa inaan shiilo baradho aan suugada ku dari doono baradhada ayaa markana saliid oo soo kululaato kusoo darayaa kadib maxaan sugayaa intay kasoo bislaato
baradhada markana way soo bislaatay. Saliid ayaan ka bixinayaa, saxan aan tissue saare ayaan saarayaa. Markana pressure cooker ayaan dabka soo saartay, kadib waxaan kusoo shubayaa xoogoo saliid ah. Saliidda markay soo kululaato kadib waxaan kusoo darayaa qorfa iyo dhagayare. Kadib waxaan kusoo darayaa basasha aan shiilayay, inta kala hartay wax yar oo hal gacan camal ayaan ka reebay. asxaabay markana waxaan kusoo darayaa 2 qaado yaanyo shiishiid. kadib waxaan kusoo darayaa nus bakeeri plain yogurt. intan ayaa markana si fiican isku darayaa marka hore, kadib waxaan karinayaa ilaa 2 daqiiqo. asxaabay markana waxaan kusoo darayaa 2 xabo yaanyo aan soo shiiday. intan ayaa markana si fiican isku darayaa, waxaan sii karinayaa ilaa 1 daqiiqo. asxaabteyda qaaliga ah markana waxaan kusoo darayaa hilibka aan fridge ka soo bixiyay. hilibka fridge waxaan ka soo bixiyay 1 saac ka hor. kadib markan digsiga ayaan kusoo ridayaa, kadib hilibka ayaan marka hore dab xoogan ku shiilayaa ilaa 5 daqiiqo. asxaabay hilibka markana si fiican ayuu u shilmay. kadib waxaan kusoo darayaa biyo aan soo karkariyay. kadib waan daboolayaa digsiga, waxaan sugayaa hilibka ilaa uu kasoo bislaado ama ilaa 25 daqiiqo. digsi caadi hadda isticmaalaysidna wuxuu ku karayaa ilaa 1 saac. asxaabteyda qaaliga ah 25 daqiiqo kadib markan digsiga ayaan usoo laabtay. hilibka markana wuu soo bislaaday. kadib markan waxaan kusoo darayaa baradhada aan shiilay. asxaabay markana waxaan kusoo darayaa kabsar caleen aan soo jarjaray. kadib waxaan kusoo darayaa basasha qaybta kala hartay. intan ayaa markana si fiican isku darayaa. ugu dambeyntii hilibka iyo suugadiisi diyaar waaye. cusbada ka dhadhami. markana dabka ayaan ka qaadayaa. asxaabay markana waxaan karsanaynaa bariiska. insha Allah la socod wanaagsan. digsi aan biyo kusoo shubay aan dabka soo saaray. kadib waxaan kusoo darayaa heel qorfa iyo dhagayara. kadib waxaan kusoo darayaa xoogoo saliid ah iyo cusbo. kadib digsiga ayaan daboolayaa, waxaan sugayaa biyaha ilaa ay kasoo karkaraan. asxaabay biyaha markana way soo karkareen. kadib waxaan kusoo darayaa 3 bakeeri bariis basmati. bariiska marka hore si fiican ayaan u dhaqay, kadib biyo ayaan la dhigay ilaa 1 saac. 1 saac kadib markan biyaha ayaan kasoo miiray. kadib digsiga ayaan kusoo riday. markana waxaan sugayaa bariiska ilaa uu kasoo bislaado. aadna uma karinahay, wax yar markuu adeeg yahay ayaan dabka ka qaadayaa. kadib biyaha ayaan kasoo miirayaa. biyaha markaan bariiska kasoo miiro kadib digsiga ayaan dab kusoo celiyay. dabka laakiin kuma shidin. markana waxaan kusoo darayaa haaf oo bariiska ah. kadib waxaan kusoo darayaa 2 qaado oo saliid ah. kadib waxaan kusoo darayaa sacfaraan orange iyo yellow ayaan isticmaalay. kadib waxaan kusoo darayaa nuska kale oo bariiska hare. kadib waxaan kusoo darayaa haddana saliid. kadib waxaan kusoo darayaa sacfaraanka. kadib shukumaan ayaan ku daboolayaa.
kadib daboolka ayaan saarayaa. Bariiska markana dabka ayaan u shidayaa. Dab gaaban ayaan rabaa inaan ku huriyo ilaa iyo 15 daqiiqo. asxaabay 15 daqiiqo kadib bariiska markan ugu dambeyntii sidan qurux badan ayuu ku soo baxay. Waa bariis aad u macaan badan, aadna u caraf badan, bariis furfur maxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin. asxaabtayda qaaliga markana cabitaanka ayaan sameysanaynaa. makiinada cabitaanka ayaan soo qaatay, kadib maxaan ku soo ridayaa qara aan soo jarjaray, kadib maxaan ku soo darayaa cananaas aan ka soo bixiyay fridge-ka qaybta barafka, kadib maxaan ku soo darayaa cambe aan soo jarjaray, kadib maxaan ku soo darayaa xoogaho biyo iyo xoogaho sokor kadib intan ayaan isku soo shiidayaa. asxaabtayda qaaliga ugu dambeyntii cabitaanka sidan qurux badan ayuu ku soo baxay. waa cabitaan aad u macaan badan oo dhadhan leh, maxaan rajeynayaa inaad ka hesheen. markana maxaan sameysanaynaa casriyaheeni oo doorsho Soomaali. insha Allah la socod wanaagsan, soo dhawaada. baaquli ayaan soo qaatay, shaqshaq ayaan soo saaray, kadib maxaan ku soo shubayaa 2 bakeeri oo bur kadib maxaan ku soo darayaa 2 qaado yar baking powder, kadib maxaan ku soo darayaa qaadada yar nuskeeda oo cusbo kadib intan ayaan isku shaqshaqayaa ilaa 3 mar. asxaabay burka markana diyaar waay, dhinac ayaan iskaga dhigayaa. baaquli kale ayaan soo qaatay, kadib maxaan ku soo ridayaa 4 xabo ukun kadib maxaan ku soo darayaa 1 bakeeri oo sokor markana ukunta iyo sokorta ayaan si fiican isku garaacayaa ilaa 5 daqiiqo. asxaabtayda qaaliga markana ukunta iyo sokorta si fiican ayaa isku qasmadeen. markana maxaan ku soo darayaa 1 bakeeri subag iyo saliid aan isku soo daray,
kadib maxaan kusoo darayaa koob marka loo qaybiyo 3 meel qayb ka mid ah oo caano ah. kadib maxaan kusoo darayaa qaadada yar nuskeedii oo heel ah. kadib maxaan kusoo darayaa qaadada yar nuskeedii oo vanilla carfise ah. markana intan ayaan si fiican isku darayaa, maxaan sii garaacayaa ilaa 30 second. asxaabtayda qaaliga markana ugu dambeyntii maxaan kusoo darayaa burka, kadib markan si fiican ayaan usii qasayaa ilaa 1 daqiiqo. asxaabtayda qaaliga burka doorshaha markana diyaar waaye. kadib markan maxaan ku shubayaa weelka foornada marka hore subag ayaan mariyay, kadib wax yar bur ayaan ku shubay. markana keega maxaan gelinayaa foornada kulul, dabka maxaan u geeyay 180, muxuu ku jirayaa ilaa 40 daqiiqadood. afartan daqiiqadood kadib doorshaha markana foornada ayaan kasoo saaray. sidan qurux badan ay kusoo baxday. markana maxaan soo qaadanayaa istakiin, dhexda ayaan ka gelinayaa doorshaha, maxaan fiirinayaa inuu bislaadiyo in kale. istakiinka asagoo engegan hadduu soo baxo doorshaha markana diyaar waaye. markana shukumaan ayaan ku daboolayaa, maxaan sugayaa ilaa uu kasoo qaboobo ama ilaa 15 daqiiqadood. asxaabtayda qaaliga 15 daqiiqadood kadib doorshaha markana waan gidinayaa. ugu dambeyntii sidan qurux badan ay kusoo baxday. waa doorsho Soomaali aad u macaan badan, aadna u caraf badan. maxaan rajeynayaa inay ka hesheen. waa qado dhameystiran ku anfici doono. maxaan rajeynayaa dhammaantood inaad ka heli doontiin. inta haysanin allaha siiyo, inta haysatan allah u barakeeyo. ilaa iyo intan hadda ila soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa. maxaan kaa codsanayaa muuqaalkan hadduu kusoo gaaray inaa like ii sartid, asxaabtaadii familigaada la sheegarisid. channelka haddaad soo booqatana maxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii sartid. muuqaalkan muuqaal lamida intaan kulmi doona, sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.